بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أبي يوتها فرحتي مسيرها إن كسوق قيب قالوا حريتان كدفعتي النواد إشغاقرة وحكاهم هاي عضو كامل هذا كورونا فيروس أولي حفلة السيل ومعمول لها إن نار معمولين يلا أنا ينو قالنا ظروفها عافمات أنا قلت لك إن أنت عضو كنت شري إلى دخول حريصنا إذا الله هو إذا بدينا إلى نواد قبطان أنا قرآن صغير نعيدين والله هاي نكون قبلنا من الحرام هذانا تاشح شح بدن ومركي سواء كشيء اللي فرعي حفلة اللي ما قبل سيد لو سود وين لو سود وين طرفها حروك عصاره وحريك ما تقيا إن نقطتين الكاس القوية هنا ومركي أي سواء كلام حلقا وأظروف أنا أقول أرضيهم ardayna ma yaqaan halkan aad timaadeen marka horena badalkoodu waxay ka haystaan fikrad adag askar oobja dhib iyo waxa loo adkeysan karay waxaan ku ammaanayaa marka hore inaan noqoteen intii markiis cilmiga loo baaray aqoontoodana ku soo gashay oo qofna aanu khiyaamay dustusiyo gacan qabad ku imanin kiibida laga saarana aad iyo aad baan ku ammaanayaa waxaa la yidhaahdaa qofkaa dheer wax looga tilmaamo ninka aqoon badanna wax looma sheego da-diina iminka halkan shaqaa qala joogtay oo kuwa idin la midka ah jaamacadaha ka baxay waxay nasiib u heleen casrigan qofku isagoo gurigiisa jooga aqoonta tuu doono uu ku noqon karo baaxuur ama professor uu aqoontaa intuu doono ka gaari karo taasoo ay da-yartu gashay dadka waaweyn badankoodu aani helin marka waxaa laga yaabaa كلمات جركة سكندري وكجرا مات موضوع كستول لجها ضايع أما subject كستول لجها ضايع إنه أقوم فربنا وياه أما مركوب هذا وكهر أيو عصرنا تعتبر الإنترنت يقوم مركا واحد بدن إذا تتكلم مايو وحن كان بركسنا وكوي مقابة إن أقوم بدن لي لكن واحد يشيء أقوم مركا لقول أنا وياه أنا لماذا واحد بدن بصوبه marka wixii waaya araga ay baan dhowr qodob idinka taabanaya oo badnayn maxaan ku farmaa shaqo qaran dadku waxay isweydiin karaan dhalinyarada waa la soo ururiyay hanti badan baa la geliyay guryaha la dhisay shaqada la qabtay waxaana hawlaa la galay dhalinyaradii 3 bilood baa la xiraya wariga gabdhaha laga xirayo 3 biloodna waxaa loo soo diraa quraaska oo jac iyo orod iyo istuur iyo xagar carab iyo rafaad baa lagu kuliyay war dadkii maxaa meesha 3 bilood maxay qiimo leedahay dad baa is weydiinayay waxaan doonayaa inaan shaqo 3 bilood horta danteena tii sanadan ka dhigi lahayd ama 6 bilood qof walba markuu sii joogo waxaan waa inuu jeclaysanaya shaqo qaran sii joogo fikirka meesha ku jira waxa weeye aqoon baad dhakhtar baad caafimaadka qura taqaana engineer baad tahay engineeriyada qura taqaana iyo guriga iyo lamid waxaan doonayaa inuu baro qofka shaqooyinka oo dhan qof hadduu doonayo inuu hogaamiyo noqdo gurigiisu ka bilaaba meelaha dadka Soomaalida dhammaantood dhibaatada ka haysta waxa ka mid ah hogaaminta ayaan iska dhimay qofku waxaan baranay hierarchy tii reer guraaga oo ah xoog weyn iyo ninka iyo war masal bal qoro oo loo raaco seegeen loogu saameeyo seegeen loo daafaco safar salafo shaqada nolosha inteeda badan ma tixgeliyo Soomaaliya marka guriga hadda ka soo qaado oo caruurtaada iyo reerkaaga ka soo qaado waxa laga yaabaa rag hawsha guriga taala kala bar 8 war ma hayo mana yaqaan nolosha iyada ku soo noqota rag wuxuu ka xaragooda ama uu aanu xil iska saarin inta badan caruurtooda markuu ceebtaas waxay soo baxdaa marka qurbaha la tago oo maqashaaro dadka la qurbayaasha caruurta laga qaado Soomaalida u badan dhibtuna waxay tahay aabbay baan u shaqeeyay qaadan waa dhaqankeena oo wariga daadina yaray ina bedeshaan loo baahan yahay kuwa anaga waa lagu dhacday taas qoladayda hore
idinkaa loo baahan inaad bedeshaan oo aabbuhu ilmaha sida uu doonayay ilmihiisa inuu noqdo inuu ka soo saaro waa inuu qaybta badan isagu qaata taa ma samayn labo qaybta shaqada nolosha ee caadiga ah hablaha waxba kama siino hooyooyinkeenna waxba kama siino xaaskeenna waxba kama siino waa dhaqankeenna oo geedkii baynu weli joognaa raggu baa geedka taga raggaa soo gooya raggaa yaqaan markii magaalada la soo degay ee bulsho badan isu timid ee meel lagu soo wada xirooday waxaynu u baahanay inaynu bulshadii u hogaamino si ka duwan si geeljira waa qasab si ra'yigaa loo bedelana waa inaynu isu nimaadnahay da'yarta la yidhahdo war maxay naga qaldan halkan markaa waxa ku dhaga doonada kubra waxa weeye inaynu maskaxda sidaynu u fikirro aynu u hogaamin doono dalkeena jiilalka soo socda aynu bedelno duruuftu ma isaabixin in hablihii la xiran karo intana lagula dhisi karo mana isaabixin in la dheereeyo koolaska wixii laga doono dhan la dhameeyo laakiin maadaama aynu haysanno internet aynu cilmiga midba ka faa'iidi karno inkastoo ta Soomaalidu wax badan kaga jirin oo inaan aqoontaan ahayn haddana waxaanu doonaa halkan inaanu si mabaadi'eeda ku sheegno waayo aragnimo war maxaa inaga qaldan ma jira adduunka dad 100 sano halkii ay joogeen joogaan 100 sano ilaa maalintii haddaad imika tirsan sanadka waa 2020 iyo maanta haddaad soo qaado sheekada iyo fikirka Soomaalidu waa halkii waa reer kufaankii waa qabiilo kufaankii waa nuurbatayda toosan aniga hagaagsan xaafadaya dadka ugu wanaagsan annaga dulman inta kale way qaldan tahay meeksta tuksooru caadadaas ay ilaahay baray oo ay dhaafi karinay hadduu PhD qaatay iyo hadduu jaran qaatay iyo hadduu madaxweyne noqday waxaynu doonaynaa waayo aragnimadan waxayna inaan idin gudbinayo doonaa taasi inaan fiici maysay bedela haddii aad tiindaada maanta ragaydu warba waxaa ku bedelaysaa fikrada way noo bilaabay hadraawo heesta hooyo la ilaahay hadraawo ka hor wixii la Soomaaliyeed gabi jiray ama maamaaliga jiray hooyada meel uu tusay qiimaha ay leedahay hadraawo ugu horeeyay dadka qaar badan oo kale ku dayday maanta mar haddii geedi la guuray mar haddii reeraan ka ahay mar haddii meel soo dhaweyn boqolaal iyo milyan qof inaga haddaynu caafimaad wada baahannahay haddaynu waddo wada baahannahay haddaynu xukun cadaalad wada baahannahay haddaynu tacliim wada san carruurta loo rabno ku socon mayso inay maskaxdeedu tiiray imiga joogto oo reer kufaankii iyo gabaygii reeraha iyo aniga mudan iyo tayda saxa ku socon mayso waxay ku soconaysaa in bedelo oo guriga ka bilowdo oo hooyada iyo xaaska iyo walaasha talada weydiiso waayo iyaga danta yaqaan oo maxay u yaqaanaa baro fiirsada markuu qofku tabaaraha noqdo tabaarado oo bukoodo oo gaboobo oo wax ku dhacaan gurmadka maragga gala mise haweenka nin walba qoyskaaga u fiirso haweenka gala hooyada waa ugu horeysa waayo iyagu waxay leeyihiin tendency waxay leeyihiin dareenka bini'aadmiga lagu koriyo lagu xanaanayo lagu dhaqaalayo ma aha sida raggu libaax oo kale u dhaqmo dareenka dadka lagu dilo loogu faano lagu dhibaateeyo xaawaladu ma laha markaa magaalada waxay u baahan tahay iyo dadkii soo ururay dad xanaaneeya uma baahan dadku duula markaa waxay u baahan tahay dadkii soo ururay dhakhtar iyo caafimaad iyo biyo iyo ciid nabadgelyadooda ilaalisa ciidanku ma aha dadka waxyeelaya hadduu military yahay hadduu boliis yahay hadduu asluub yahay wuxuu ilaaliyaa bini'aadmiga wixii dhibayo ka qabtaa hadduu ciidanku dadka dhibaateeyo iyaga waxyeelayo ciidan maaha waa daari markaa ciidamadeedu waxay u taabaran yihiin inay dadka ilaaliyaan oo dhibta ka ilaaliyaan oo gudahooda kala ilaaliyaan oo kaga daran qabtaan ee maaha ciidanka in loo arko wax waxlaaya wax laga أنا كان يقول يا الله فكر جاء عن قاضي سأدري جلسة وحنا لا بحر إلا يسوق أنت اللي يرى وقت يومها بور هيك لا بارو
transformation in la bedelo fikirkeedii qoys gobol reer iyo hebrada ahaa oo wax la wadaago oo maxay ku midoobeyna maxaan isbaraynaa distoorka waxa laga yaabaa intaas ku jirtay qofna loo akhriyo waxa laga yaabaa golayaasha baarlamaanku maxay qabtaan maxay xaq loo leeyahay maxaa aduuga xaq u leeyahay maxay ku leeyahay maxkamaddu maxay qabtaan inaan la ciidamada kale maxay qabtaan maxaa laga rabaa marka waxa barato system kar ay ku midoobay marka barato ee dawladnimada ah ee aad garanaysan waajibka laga rabay hay'adda qandaraas hay'adda imtixaanada hay'adda amniga dhaqso marka barato ayaa hawsheedu wax doona ka qaban kartaa haddii aad aqoonba waa diyaar ka xaq marka halkan waxa uu keenay inaan isla baranno dawladnimada waxay tahay waxay doonayaan iyo sida wada qaban qoladii tacliinta aqoonta aad barateen intaas halka la kordhinay marka inta la helo maxaa la rabaa marka saddexdan bilood rag iyo dumar hablaha aan loo tababaray waxay fuulay xil ah in aad u diyaar garowdaan dadka la su'aal birdadka ay hogaamiyaan shan sano faafir kabacdi waxa uu qaad badan oo shaqo qaranay inay noqonayaan saraakiil waaweyn oo ay hogaamiyaan dhakhtarro waaweyn oo dhakhtar haysta siyaasiyiin xisbi hogaamisa wasiiro qaarna ay madaxweyne sharaxaan shan sano daadii إيه فكرة إيه كواحد لا يعرف دوري لو تجريته لكن ممكن تعرف بعدين طبعا كمان كنا بنقول سوى مريسا ضبط عن واحد هو قالوا ولي مباشرة حب وسط السياسي قاعد تجري هذا الشغل أي صور نقطة حضارتها براننا وأنا نصيحة هذا كبد أنتم كل قال وهو قال كذا مثال واتها كارو حب العيد سنينة وسيد كلام كذا ما أرضي سوى هذا الكورة أقول ده صح قبل ألف مريستي فأقول كل يوم هرجع ولا حاجة يجيب ما وده سؤال كويس سووا سؤال هذا العمل كلام قد جماعة وزير إن كلهم كلام بقى أعطيه أخبار تاني يشوف على هذا الدنيا أنا سبيا شو لو بيوام قرادي هم نبي كم هذا وصل الصندوق سؤال السنة كوه بتاعت الدار سأل بتاعته هو قال منه ضل يرجع واحد معربين هنا خذ بضع مركز صوفه أنت ما كان كنا في شهر جرب إياها مريضة أنت أمانة هاي الدولة اللي كيا جالسين هنا أنا أمانة حمريضة ذيك عينها أمانة أنا بربان السيرة يا وايو نورش حلو بلده هو هاي هل كيد صار هو هاي هل كيد الدوري لما ينقاري كلامي أنا بالمقاطع هذا كذا تنسين كدوري هو بير وحنقولنا أنت بقول كيو بقول كذا المسؤولين مركب بير ayaynu joognaa hawl badan baa inoo soo arkaayo kaliya dalkeena inta in lag baa inoo taalo dhalinyarada waxaan doonayaa marka dalkeena maanta xaalad ugu sugay maxaa soo jeedin waajib horta ilaahay mahadi ma jira adduunyada dawlad caawdana ka dhisan adduunka oo aan dhibteeda qabin oo aan nabadgelyada la rafanay oo aan dhaqaalaha la rafanay oo aan muranka la rafay adduunka ma jirto waxa aan isleeyahay ilaahay ma manaaciid ka buuq yaray ma jirto adduunyada waxa la jantaado ugu xoog weyn Mareykanka malaha idaacada waa ka maqlaysa madaxweynihii Mareykanka oo inta xafiiska laga carray bankarka la galiyay oo cid soo duuray ee dalkiisa haystay dal kastoo dhageysato adduunka dhibaato ka taagan waa nolosha keena way jiraysaa oo way jiri doontaa oo idinka dhibaatada dhaxli doona oo xal iskeeda qaban doona kuwa ka dambeeya qabanaya nolosha iyo dhibaatada waa walaalo way wada socdaan horumarka iyo dhibaatada way wada socdaan ma dabayso waxa lagu kala guuleystaa sida dhibaatada loo yareeyo horumarkana loo socdo taasina waxay ku timaadaa ismaqalka isku kalsanaanta confidence inaad aaminsan tihiin dadkiina dalka wada shaqeynaya oo meel wada jeedaan inaad dantiina wada garanaysaan waxaan qabanaysaa inay guud inaad wada garanaysaa bay ku xirantahay haddii aan taa la garanaynin oo taas khatar ku jirto wada la socon karo dadka socon maayo Soomaaliland 20 sano cidma ixtiraafin dawladda ma ixtiraafin dhaqaale buuran lama siinin oo dawladda maanta deeq kuma laha baan wax ma siin IMF wax ma siinin cid wax u sheegan mayso 30 sanadoodna way koraysaa oo maalinba talaabo qabso oo wadana ka dhisan cidda aqoon ilaahay mooyaan 30 sano 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 30
وكالسماتا يسوع كالصورة ووحوة قبسك ومركب وحركة ترسيس وتنازل ومركب حقوق قرن كدول لكن ضد هذا الشيء وحقرك قبسة وقتل ولكن وأردت أن أقوله صعب لبعضها إنه أبو بدر يذكر مثلا شيء هذا إن هرت هذا أو بعد كل وحوي دتك ما دام بقول كذا سديت أنا مجال يسولد وبتصنف بيها هاي وحتى هذول مجال شو شركة مين كين وحولي أعرف هذه الدولة المحاطة دولة لماذا أنت كورس السؤال لأنك سؤالك وحو لكم من دولة عداوة تيجريس كورا وصاف كبقى تي كلا سومالي أو كبر ودل يحرق يعني تاريخ يربط سيده حمر بلاد كتاني هي خلاف سوماليلاند وسوماليلاند اسم قشو أو قرب هبر وضو كرسي تك لحد كذي الاستماد تتمشي هبر وضو تك أنا قرر معي هبر وضو حلوان قواه وضاع داس وصام ليس أي حمر تكت هبيكي أي صدق كهاي شو كودي لسارية عركة سوماليا كونفورت هذا العدالة الدارية ساعدي هذا العدالة الدارية يقولي كذا ولا شيء يقولي برنامج أيها واحد كبر موضوع مظاهرات يسوع رمادي الدجاج صدق بقول بالحر صدق بعد ما تهي تضبيط تورنوا يدعوانه عالم كنا واحد شوفي أفر بقول أو مضحى أو إيمان سيء إلى من دماغ الصومالية هي حرية القاطع ورياشي عالم كان شوفي وحريانا يربط بحنا على الحر قال بعض يارد قال كريسي وأمريكا كيهم ونيروبي كذي ووركي فيه كومي ترياني قال بالوسيدة هذا هو هذا كله تاجي من دماغ الشيء يرها كله له أي تاسكر محاكم رئيس تاني كتوك وحلوتني ونكون حد عن ضد يجي سام ما تاي سوايست سيدي كتوك يسألوا كتوك وحكى سعودي حمر تاجر أي مظاهرات حزب جي أسوأ أنا مكلمه فأنا رجع أساس كبحر سخاوتيني أنتوا شانقال تجوز كبحر وحلقة صار المصاب قرية رجع بعض أمارية رجع وين أي حلقة صار أسوأ سلسلة كاسكاري كتوك حرية برزيل سوالي صدق مرة عضو قاعد دولة عبد الله عيسى تقال كاس وصاء وحقاية سؤال الناس وحكى سعود مركز صوبة يقولون بينما وحنا أهلا قفر حسب قاس وأنا بريت على كل قادر هذا جيبوه وحكى عيد قال كيلو شريك كل الدول قلوبي ولا شريك حسب قاس وأنا قلوبي الدول صدق حيث هو أقمت إلى ما انتهى إلى ما تتفيبت هذا سوماليا تصبح كاس سنة كلام مغرين إياه وارعين اعتراف بهلا كبح إياه سنة كم الدم يقولون مريكا كا 1 بليون لعقد له كشوة أما عم يسوي الله يقبحي أما برلمان كله شهران الصين أما عيد كله هالله تركوا كشوة أي لوبي هل كذا تاجت وحنا يا هذا كذا جوجا واحد هذا مدنيو إياه ذلك شري إياه وحصو هذا القاضي وحاجات كسرتها وايد حاجات كسرتها سوماليين المدودة وحنا قطعي شرف يا رتوه وجعله هل كان كأسرت سوماليا مركاني كمان تحملوا هذاقي أما هذا الحين أما تنور العالي حمر حلو ويا شيء وحنا دوري برد أما برنامج حمر هذا الحين وقاشان أوتومر يوم خرط حاجات كسرتها والمقالة بعدين سنة نفترض بس هذا كويس توي سؤال سوماليا هذا تكتشف هل كان هو سوماليا وحيانا مeel iyada goboleysa 6 sano saasa meel ku dhaxbaysa marka ugu baaqayso gabayga la duufaan xasan garow dilka faraacina inkastoo daruuriyo daadihiya waqallada dunyada loo marhado isna waxa ku diida oo waxa ka doorbiday in dunyada ku hayo daran أي درا يبيكوا عباه وحوي ديرك وحلا هو الروب كوباد يسلك مكس كوباد فراعي والروب هورا بين فوق ومرا ضروري بعد هذا كوسع علسو والور هنا حوري ضد بابا حبض سو صار بهضر مريض خنوار ولا دبولا ولا مشابه ورماشه waxa ka socdo faraaci lacag baa lagu soo waa dirka faraaciga xasan kare sheegay inuu furinayo
marka waxaan taa idinku sheegayaa dhalinyarada shaqaa qaran rag iyo dumarba waxaa la idinka doonayaa dalkan xilkiisa soddon jir baa maad ku dhowdahay waxaa shaqayn kartaan soddon sano kabacdi lixdan baa gaaraysaa soddonkaas sannadood waxaa laga rabaa dadkii gaarsiin lahaa technology iyo horumar iyo mushaaharo wacan iyo waddooyin wacan haddii saaskii iyo nabaddii iyo dowladda aanu idiin dhignay dadka lagu wareejinaya inaan doonaya inay qaadaan waa taa qodobka buuraynu ku dardaarmayna waxaa taa gaaraysaa markaynu ka guurno fakarkii reer miyiga ahaa reer suufaanka ee qoys ulaysigu dowlad gaara ahaa ee intii isku filnay ee isku leekaayaan daruurta iyo halkaa daaqayso iyo ballaygaan ka kalena beerta ugu do-o beertiisa qura uu goosto deetana isoo qura isku filnaa taasi ma soconayso bablishakeenu u kordhayaa qoys wale toban buu noqonayaa waxaynu u baahannahay inaynu dalkeena si cilmini hogaamino halkan waxaan idin kale inaad fariintaa qaadaan oo ku dhaqantaan qolada shaqada waxaan kusoo gabagabeynayaa maanta waa laydin xiray halkan laga bilaabo maanta waxaa ka mid jira ciidanka qaranka oo kayd baati ma tihiida qorshe oo madax rag iyo dumar kaydkaa ku jirtaan marka dalka loo baahday dhibaata dhacdana waxay tihiin frontiers-ka ugu horeeya beeshaa doonta joog maanta dagaalkii u weynaa baynu ku jiraa faaraskaynu u dagaalamaynaa wacyigelin baynu u baahannahay xoog baynu u baahannahay dhammaan kuwa horiya kuwa dambe shaqada qaranku waxay kow ka yihiin forontiyaalka halkii lagu hadala tagaaya waxaan iska xaadiraya barasaabada iyo gobollada waxaan iska xaadiraya degmooyinkooda waxay diyaar ku hanayaan wixii looga baahdo taasaynu joognahay dadin hore aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu